السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سودا وهذا وولاشن فاتوش channel كداوني سينو فاتوش فاميلي ما شاء الله وأبديت كدي إن شاء الله سودا وهذا وحنا كهذا دونا وحياة بدن واستيديد أي سمين ينسي وعاويان dadkooda waade sicir bararka iyo gaaska baa laga hadlayaa maadaama ayaantan gaaskii waxa ugu badan oo laga hadlo iyo gaaska insha Allah subscribe saar barnaamijka asxaabtaada la share gare hadii aad nagu cusubtaan soo dhaw markasta waxaan jeclahay inaan update ina siyaadi ilaahay idmo video like ka sii insha Allah Snapchat iyo ويقصد درسين كرتين ساعة أركتين وحيابها كلا دفنتوش أي سميسين إن شاء الله. السلام عليكم كسر دواد فاتوش فمن أونلاين ستور هالكاسوات كهري كرتي داهية آد وقروح بدن عصري وقدام بي كلا رأد وكلا دوان سيدو كلا وحن كوها يقوياش للصريرها كو ميسك للسارة علاب بدن فلان هدا أحيسيني سيداهي داسي علاب تاس إيجالسو حرير سناب شات كأما ترافن كشاشة دا كو قران شيبين وان سمايا يونايتد ستيت هدي عادكو نشاهد. So استديا بدن أي واحد سمين دونان قارن بالسمايين إن أي ولك ما يدعني إن استيدكو كقاعدة تاكسي وسعر جري كوسقات جروشريجا وأديجنا يو وصيابها أي ربان إن أي سعر بره ولا تقالمان so سيدو كله income تاكسيجا كوسقات إن وحالة سمايا مركز check شقيسي وسو شقيسيتي income كوسو كلا تاكسي بالوسارة إن سيداسو كلا تاكسي كلا جدايو سي أي دتكو big paycheck وسقطان so big paycheck دي قفكو استعماله وحبوكو قدنا دي سعر بركة أساس لو غلط دقالة سيدو كله غاسكنا كده ينستدي بدنا حتى بالعبي كم تايم ميسيسيبي كم تاي فلوريدا إن غاسك كده يعني هذا ميسيسيبي وكل اللي بلاد أي وحي كده ينسى غاسك إسساري إن تاكسي وقت يعني لا غاس ميل ودعايو فلوريدا 400 حلسية لهن قفك سسي وغاسك وغاسك وسكجر رقيسي يعني غاسك وجو استعمال العكتاسي سيدو كلا نيو جيرسي وحي إيران دت كده كو عاونيسا وحي سمينيسا property tax وحدو property tax وغوريها حولها property property okay غوريها wax kasto leedahay waay property tax ka soo qaad guriga aad leedahay kale waxa la yiri waxay tahay New Jersey waxay aan jirtaa the highest state ku ugu badan ee canshuur ka qaada property 9 average waxay ka qaadaysaa 9000 yearki 9000 that's a lot of money bay ka qaadaysaa oo taxi ah marka waxay sameynaysaa taxigii bay dadka u dhaafaysaa usoo celinaysaa taxiga dhan loomada wada dhaafayo kaba soo qaad waliba waxay bixinaysaa dadka income-ka 250,000 iyo wixii ka yar qofkii sameeya tag property-ga kaliya ma aha dadka guryaha la renters-kana way ku jiraan dadka rent-ga way ku jiraan soo qabo soo qaad qofkii 250 sameeya waxa loo soo celinaa maybe 1,000 to 700 oo ah taxiga u baxshay ayaa dib loogu soo celinaya dadka sameeya 100,000 ka yarna oo renterska oo guryaha rent gareeyaan waxay sameynayaan 250 bay dib ugu soo celinayaan oo markii taxiga laga qaato guriga taxi rebate baa lahaa oo dib baa lagu soo celinayaa sidoo kale waxa ayadana ku jirta Illinois waxay u soo celinaysaa taxi property bay maraysaa 300 qofkiiba ugu yaraan 300 waxa loo sameynayaa intaas in bal maciishadii iyo wax kasta markay kacaan in state kasta uu isku dayo si uu dadkaas ugu raqiisin lahaa oo taxiga laga celinayo fiiri taxiga markii laga qaado state-ki hadda dadka dhan taxi ka wada qaado balaas buu noqonaa because lacag badan baa u soo haraysa lacagtaas waay dadkii taxiga laga qaaday baa dib loogu celinayaa ayakii sidoo kale Idaho state-ka la dhaho ayakana waxay sameynayaan property taxigi bay slash kareen ayagu waxay sameynayaan property taxigi bay qaadayaan oo ka soo qaad gurigii dadkii taxiga laga qaadi jiray baa laga daynayaa laakiin maxay sameynayaan waxay siyaadinayaan
sales tax waxa la dhaho waa wax dad gadmada waa wax gadma sales tax waa qofku markuu wax gado dukaan ama ha ahaato meel kasta wax kasta oo la gado taxi baa u saaran state-ka oo taxi buu ka qaadaa marka waxaa la sameeyaa taxigii saarnaan jiray baal waxaa la sameeyaa ayaka sales taxigii bay kordhinayaan property taxigii bay ka qaadayaan oo waxaa la sameeyaa dadkii guryaha lahaa ayaa taxigii laga yareynayaa dadkii wax gadana taxiga lagu kordhinaa marka taxiga badan America taxi badan laga qaada waxaa jirta taxiga property-ga oo guriga aan leedahay sanadkii taxiga waa laga qaadayaa wixii aad gadid waxay qofka haduu dukaan leeyahay asagana wuxuu gadmo waxa laga qaadaa sales tax waxa loo income tax baa jiro income-ku ku soo gala taxi laga qaado wadanka dhan wuxuu ku kala socdaa saas waa dadka ma fahansana waxa dawladdu ku rangareynayso oo state-ku ku socdo oo shaqaalaha uu ku beegareeyo oo highway-yada uu ku dhiso oo wax kasta ku sameeyo because la daqiiqad farq kasta oo qaadid ayaa lagu taxi gareey hadaa maanta banaanka u baxno wax soo gadano waa la taxi gareeyaa hadaa alaab guriga u soo gadato waa lagu taxi gareynaa lacagta soo shaqeysata waa laga taxi gareynaa gaariga wadata waa laga taxi gareynaa guriga lahayd waa laga taxi gareynaa min taxiga sanadka waaya laga taxi gareynaa wax kasta oo dhaqaaqa waa laga taxi gareynaa lacagtaas helaan lacagtaas markay helaan lacagaha hadda la isku haysto oo hadda darad Minneapolis macallimiintu ay dhaayeen state-ka wax naga sii lacagta 9 billion-ka oo ku soo waxaysmata wax naga sii state-ku u dhaay oo la isku wada haysto waa dadka taxiga laga soo qaado oo lacagtii ciidii ka badatay waayo kodeen lacagtii taxiga saa u qaadeen oo danaheeni shaqaalaheeni waxaan u baahnaan ka qabsanay lacagtaan baa soo hartay ay kala dhahay marka lacagihii u baa la rabaa dadkii laga qaaday in lagu celiyo steedada qaarkood dadku intay xanaaqeen waxay leeyeen gift to the people dadka iskale ku celi ee idinku ma lihidin waana run marka mise loo fiiriyo because adaa laga soo qaaday oo hadda qofkii 500 ama wax yar loo celiyaa macna ma leh because saan kasta qaaday adeega aaday iyo alaabta gad dharka gad wax kasta waa lagu saaray taxi baa lagu saaray everything shay yar ma gadan kartid waxa lagu leeyahay taxigu waa intaas taxi baa ku saaran marka saasay ku caawinayaan stage badan insha Allah waan share gareyn doona kuwa kale waan soo share gareey oo hadda Minnesota ay ka mid yihiin rabaan taxi rebate dadka inay siiyaan intaas oo dhan qof kasta taxi state-kiisu wuxuu ku fakarayaa dadkiisa soo ku caawin la marka all of that markay lacagooda bilaabanayaan de check hada heshina naga qarsan because taxi rebate-kiis la iskuma sheegay check ba dhac la isku soo diray insha Allah aad badan ma sinta asxaabta igu xiran stay tuned waxa soo dhan ana update ka soo siinay hadii Ilaahay idin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh